الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا كجرتا يصدب الرعدة أما فلو رزقه سوشيال ميديا فيسبوك وحنا سلام يا سلام إسلامك وما سنتهين سيدا مرولبا حرير كينا والصعدة وناكسين هاي وحنا كسوغانا هاي ولي ساكو أركتان لابد عنا يجياله magaalada Toronto wadanka Canada oo sahar uu sheegay si aad u qiimo badan lagu soo dhaweeyay runtii waxay ahayd waqti aan ilaabi karin dhamaan reer Toronto waxaan leeyahay waa mahadsantihiin iyo asxaabta kale waqtiyada kala duwan marka mawduuca aan ka hadlayno waa mawduuc muhiim ah oo waxaan u magacdarnay social media iyo sawirada qaqawan arimahaas runtii waxaan dhihi karaa kulay da'deedana waa u jeedaan waqti badanna warbaahinta iyo intuu social media bilowday ama Facebook waxyaalaha cusub intuu ku jiray waxyaabo badan ayaa arkay noloshayda oo maaragtay aan la yaabay aan ka naxay aan maaragtay aan la fajacay oo haday sameyn lahaayeen dad kale ama Soomaali haday sameyn lahaayeen laakiin magaalada Toronto intaan ku sugnaa shalay oo ahayd maalin axada bisha Luulyo ee 9 wixii igu foosha xumaa igu naxdinta badnaa ayaan la kulmay oo runtii ahayd arin aad aan uga xumaaday oo uga carooday oo aadna ii saameysay marka waxaan isku dayayaa in maaragtay aan ilaaliyo sharafta iyo magaca qofkii arintan ila soo socodsiiyay iyo inaan ilaaliyo ayaan isku dayayaa gabadha laftigeeda oo arintan ay ku dhacday arintana waa arin loo baahan yahay qof walba oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo meel walba adduunka jooga inuu ogaado si uu isaga ilaaliyo marka marar badan ayaan ka hadlay video qaabka la isku beeqsado ama la isku waabsado ama humiliation la isku sameeyo Facebook oo nasiib xumo raggeena Soomaaliyeed ay u badan yihiin oo inta badanna hablaheena Soomaaliyeed ay ku beeqsadaan waa dhaqan cusub oo la soo baxay internetka iyo social media oo ragna waa la isku dili jiray waagii hore Soomaaliya xilligii dadka reer miyiga gabar hadii in sawirkeedu qaawan meel la soo iska daay hadii xataa wax laga sheego qabaa'ilada iyo dadka reermiga isku leeyin jireen marka kulli anaga ma lehin qofna hal dilo qofna waxa lagu sameeyo ma lehin laakiin waxa ay ku dhacday arin shock ayay ku dhacday qof aan saaxiibna isku fiicanahay ayaa ila soo xiriiray dad badan ayaa soo xiriiray Facebook oo arimaha social media marka wuxuu yiri gabar ayaa dhibaato aad weyn ay haysataa gabadhaas waa inaad gacan siisaa ayuu yiri marka aniga gabadha waxaan imaadaa taqaaniinta ana aqaana wuxuu yiri ana ka masuula wixii ka yimaada sababta qof walba kula soo xiriira Facebook ama social media ma oran kartid waan ku caawinayaa arimahooda ma gali kartid waa inaad xaqiijisaa qofka la eedayo inaadan xaq dara ka galin oo aan oranin maaragtay qof aad la soo boodin marka arinta waxaan islaa wax iska basiidoonin gabar ku soo caayaya maalin walba dhacda maalin walba dadka isku caayay dadka akhlaaqda xun ee Soomaalida ah maalin walba isku caayay Facebook marka waxaan islaa gabar baa la soo caayay marka bal furious ay wuxuu jiraan laakiin waxa ay ku dhacday shock of my life waa wixii ugu foosha xumaan arkay gabadhii ayaan la xiriiray waxay tiri bal si fiican u dhageysto nin ku nool wadanka Mareykanka oo odaygeeda iskuursadeen ma aha nin ciyaal suuqa Facebook intay isku barteen maaragtay wax la soo dildiray oo maaragtay la shukaansaday ma aha waa nin ay isqabeen oo nikaaxa islaamka isku guursadeen oo dad isqabay ah oo markii dambana ay arintooda guurka ay soo dhamaatay marka waxaan ka codsanayaa si dhalinyarada ay arkaan video inaad si qaybisaan share gareysaan YouTube aad galisaan laakiin title-ka ama magaca laga bedelin fadlan magaca laga bedelin sidoo yahay waa in lagu qoro hadii kale waanu dacweynaynaa marka wiilkan dhalinyarada ah gabadhan way isqabeen way isguursadeen dad jecel bay ahaayeen waqtigooda ayaa soo dhamaaday waqtigooda markii uu soo dhamaaday wiilkani gabadhan waxa dhacday in wiilkii 2 bilood ayaa laga joogaa in wiilkii uu ka samri waayay gabadhii oo uu yiri hadii aad igu soo laaban weysid waan ku fadeexaynayaa markuu leeyahay waan ku fadeexaynayaa tabcan wuxuu ka haystaa dadka markay shukaansadaan ama ay isqabaan waxay ahaadaanba waxyaalo ay isweydaarsadaan ugu horeyn gabar sawir iska qaaday ama video iska qaaday uma iskagama qaadin in maaragtay social media Facebook ama meelaha la soo dhigo xaq ay u leedahay waxay doonto inay sameeyso waxay u qaasiyeen marka lama dhihi karo iyada ka masuula lama dhihi karo taas waa beeqsiga waa humiliation-ka waa maaragtay waabsiga hadii kale waxay noqonaysaa gabdho badan ayaa jira oo maaragtay Facebook xataa sawir aan soo gelin karo rag ciyaal suuqa qaata marka calaa ay xal sheekadeeni ku dheerayn
waxa dhacday gabadhii laba qof oo waxay ahaayeen isjecel oo isguursaday oo nikaax isku guursaday oo maaragtay isku meel ku wada noolaa markii dambe waxa dhacday in la is aaminay oo la yidhi facebookgaaga si facebook ay la siiyey marka ninkan siduu asaga sheegtay markii dambe facebook wuxuu jabiyay male oo facebook gabadha ayaa maaragtay siisay sawirana waa la soo diri jiray dad isqaba way isu diraan sawiro dad isjecel way isu diraan hadba si la isu aamino gabadha marka dhibaato ma samaysan gabadha dhibaato ma samaysan boqolkiiba boqol gabadha dhibaato ma samaynin ninkii isla facebookeedii uu ka jabsaday ayuu wuxuu soo geliyey sawiro gabadhii oo qaawan ayuu soo geliyey qaawan markaan ka hadlayo ma ahan qaawanaanta annaga aan naqaano la yidhaahdo gabadhii timaheeda way qaawi yihiin ma ahan waxaan ka hadlayaa sawirada iyo videoga uu soo geliyey qaarkood waa sidii hooyada ay ku dhashay marka lagama yaabo in contact ama link ama waxaas la ogaado waxaan isku dayay 24 saacadood ugu dambeysay in sida loo qarin lahaa gabadhan loogu ceeb qarin lahaa gabadhan Soomaaliyeed oo aniga aan aqoon u lahayn oo maartay weligay aan maqlin weligay arkin la sameeyay gabadhii wuxuu soo dhigay video iyo wuxuu soo dhigay iyo sawir ayuu soo dhigay gabadhii marka gabadhii markii wixii aan arkay meesha aan ku arkay runtii xataa wax indhahaga xataa qaban kara ma ahan waxyaalo waxa jira xataa dhihi kartid bisinka laakiin waxay ahaayeen waxa ugu fool xun oo qof bani aadan qof muslim qof Soomaali u arko على أي حال ماشي كما أنا مبودين أو صيف لما مبودين وحن سميه شخصي وحن كل دقائق وحاس كيس قبر ده هير أيان لحريري وحن يري ولا الهبل هذا قبر أيان لسحريرتي أو إكس حاس كاجي قبر هذه هراء سأقول وحن كاع صنايا إسلام نمو ريكور كأيان هاي قرآن إسلام نمو سومالي نمو يو وحول برك نمو أرنتان دجيو قبر أن كسر باني ماشي فضيحين وولاشا وكله قبرن حاس كذا حتى ما هن قبر مارتي بنانك كتير ويدا ولاشا كسرني يمشوا جوابي وقتي أيان سجى عد أيان الدوبي وحنا هبل هذا مدونه يوم مجا عاجة يسوي كأن ميل بنانا صورليجو فضلا وحن كعد سنة يا أرنتان أنا هنقول كاتو قبرنا فضيحين مارتي عيبين قبرنا وح كاجة إيمانا إيمال إسكده أذيك بس عيبينه وأجا مركي دمبه وأنا كوعلي ساعد مركي كسوليتي وحنا لي فرصة دي قدام بيسألين كوسينيا ماشي وكجت فيديوجي نسيبنا وحنا نصور تلك الشيء إن فيديوجي عن هودا عن كسرنا يسوردي ومركي دمنا هذا كسولي مركي عن سور كيس سوق لي فيسبوك وعن ريبرشوا ناكسن هبل ولا يره هذا هبل جيس اللي يره هذا أو كنا ستيت أو هاي حتى دوني ما يجينا نشجعه مقالد يكونوا ليه سبب توأ أنا وحنا آمنسنا هاي rule of law أما شرعية قف كبني آدم كشرعية سبب تلو سميه واحد تاعي إن لو قلب بحم محكمة وحل بيجران وودن كمرايكن قاسة ستيت أو هاي اللي هذا وحكي جرا federal law شرع federal كيال اللي هذا revenge porn اللي هذا مركز revenge porn وحويه revenge porn وحويه قف كيس لو واحد كنا شيء نورث أمريكا يوروب يد كنا شيء هاي قبل صور يكوسو درت من فيديو ماشي هذا النص اللي كرتا وحكسوا بحي وضمضن أمريكان كيو كندا يوروب قاركود ويكون جبت إنجليز كا revenge porn وحلي هذا أما أرجود الشدي وحياله قوانا أصوركتي كاسو وضن كأمريكان كوحكي felony أما وحكي هاي إن الشرع قاعد يقول لك تيجسده شانس أنا حركة يلا بقول أفرتن كنا دولار جناحه وضن كإنجليز ساسو كله مركا الشخص كان واحد كدر يمي إنه سن الدنيا كور قبل إن قبر حاس كيس إذا كور حضيق وبنانك وصورليجو وسيدان أفضل حي واحد كوسميه مركز دم ماشى الصري وإلى سحريري وحيري معركتي قبرده يدا معركتي وانكرتني يدا إلى سحريري شيء وأنت وحكستو يكون سحرير تاني وحكستو أو إذا بحمرة حق ما أقوله هاي بان إلى تسوق السور كذا مركز وحكو جوابه وحيري وحن دونان سمينا يا مركز دم بوالله إيش قف قاب كويه هاي تضبطنا يا للسحرير وان نقانا وقف نوعاسي مركز مهمة واحد هذا قاركود حيره هذان gabadha maxay sawir isaga qaaday qofka hadii maaragtay uu xor ku dhashay gabadhan xor bay ku dhaltay waa gabar yar oo masaakiin ah oo maaragtay waxay galabtaan jirin hadii gabadha laga dhigo victimka oo maaragtay qofka ku sameeyay la yiraahdo maxay waxaas u sameysay hadii waxay noqonaysaa gabadhii maxay wadada u martay shalay ay noqonaysaa ama gabadhii maxay dukaanka u tagtay mise gabadhii maxay dirac u xiratay qofka xoriyadii ku dhaltay qalad ma sameeynin ninkeedii waxa laga yaabaa su'aalo kala yimaada laakiin su'aalahaas muhiim ma ahan maxay isaga qaaday maxay u sameeyay ma ahan sawir isaga ma qaadan video in Facebook lagu share gareeyo gabadhan ninkeeday ma aragtay isla hadleen ama dambi ha ku ahaanin qofkaas anaga judge kama nihin ilaahay baa judge
laakiin muhiimaddu waxay tahay ma xaq baa gabar Soomaaliyeed oo reer leh tol leh qabiil leh wax walba dad u dhashay in nin Soomaali ah uu video intuu soo qaado iyo sawiro uu soo dhigo Facebook oo dadkii dhan ay wada daawadaan bal qofkii le arintaas waa xaq ma aragtay waa loo baahan yahay iyada ka dambeysay ani waxaan filayaa qofkaas inuu u baahan in quraan la saaro ama isbitaalada miirka la geeyo sababtoo ah qof miirkiisa uu fiican yahay ma aragtay waxaas ma sameey marka gabadha markay ila soo xiriirtay textan ka haya gabadha oo magaceeda aan qarinayo aan idin wadaagi doono waxay igu tiri Cabdinaasir waxay tiri waxaan ku dhawahay inaan isdilaan ku dhawahay tiri waana aamin markay saas tiri textan ka haya inaan isdilo ayaa iga soo dhow sababtoo ah adduunkii ayaa gabadha xiriir ku noqday taasna waxa keentay arintan ayaa keentay xiriir ayuu ku noqday dadka markay isdilayaan ma waashaan adduunka marka lagu soo xiriiriyo oo sawiradaada adigoo qaawan ama video la soo dhigo baraha ma aragtay social media la soo dhigo meel walba waxay noqonaysaa in wax walba qalbiga ay soo gadnaa suncabtid inaad isgubtid qofku way ka suurada wax walba markaas gabadha waa la hadlay waxaan la hadlay muddo 45 daqiiqo horta waxaan idhi istaji fadhiiso rasuulka ku salli ilaahay aamin ilaahay ba nafta qaad ilaahay ba ku dila marka waxaan idhi weligaa ku fikri maayo dambigaas isgelin waxaan ku yidhi adigu ceeb kuma agtaalaan idhi maanta runtii aad baan u qiirooday waxaan idhi ceeb kuma agtaalaan idhi waxa ceebaysan 100% waa ninka ku soo dhigay sawiradaada banaanka ayaa ceebaysan adiga saliim ayaad ka tahay waxaa laga yaabaa Facebook wixii la soo geliyay sawir ama video haddii laga saaro oo laga xiro wax walba sameeyo waa la iloobaabaan dadku way iloobaan laakiin waxaan la iloobayn wuxuu yahay ninkaas iyo mustaqbalkiisa iyo wax uu sameeyo wali waxa ka sii xanuun badan waa xaaskiisa isagoo u dhaxday oo nikaax ku guursado aha ma ahan girlfriend iyo wiil aan isjecelnahay oo magaalo hebel jooga ayaan ma aragtay aan israacnay marka waxaan yiri qalad ma lihid qofka oran kara male maxaa video u sameysay qofka oran kara male maxaa sawir u sameysay adaa samaystay ilaahay umba judge ku adiga hadii dambi uu yahay haduusan ahayn ilaahay ba judge ku laakiin muhiimaddu waxay tahay sidee adiga waxaan uga baxdaa waxaan isdeji baan iri Facebook ha galin cidnaha la hadin marka dadka ugu daran dadka waalaya waxay leeyihiin qof xun baata qof xun ma tidbaanina gabar adeeg ka wanaagsan ma jirto qof walbana waxaan iri qaladka waa sameey qofkii maanta ku yiraahdo weligay sawir anoo ma aragtay nooc kala ah gabar aan jeclahay ama xaaskayga ama odaygayga uma dirin been buu ku sheegay qof walba stage kan oo geelo laba jir soo wada mar waa soo wada markaas dhigan hadalkii runtii wuu dajiyay gabadhii waan iga mahad celisay gabadhana waxaan isku dayay meel walba oo dulduleysho albaab inaan soo xiro si aan loo ogaan qofka ay tahay dad baa markaan sawirka soo galay waxay yiraahdeen sideen ku ogaan karnaa bay yiraahdeen waxaan inay wax ka jiraan evidence marka ma waxay doonayeen in gabadhii oo qaawan sawirkeeda meesha soo dhigay tabcan aqli ma ahan wax reasonable ma ahan wax ma aragtay male marka gabadha waxaan weydiiyay ninkan caruur ma isu wada dhasheen gabadha waxay ku nooshahay wadanka Mareykanka laakiin sheegi maayo xataa isteedkay ku nooshahay shakhsigan Ohio ayuu ku noolyahay ma sheegayo magaalada kaga noolyahay Ohio laakiin maanta oo isniin ah xilligan aan ku jirno dad degan Ohio state-ka isla magaaladaas ayaa waxay dacwad ku gudbiyeen qareenka meeshaas isagoo la soo ogaaday meeshuu yahay waxaana loo qaaday wixii screenshot-kii loo diray iyo ayaa waxay isku habeeyeen waxay tageen qareen ayay u tageen in lagu qaado revenge porn waxa la yiraahdo Google-ka eega waa illegal waa sharci darro in qof sawir ama nin ha ahaado ama naag ha ahaato laga qaado oo meel la geliyo okay marka gabadhi alxamdulillah hadda waxa socda dagaal ah in ma aragtay Facebook dhankiisa laga dacweeyo oo laga xiro oo isaga wada ka baxo 100 jeer ila soo xiriiray isagoo waxyaalo aan garan waay ku hadlayo oo ma aragtay oo aan aad ula yaabay markaas waxaan iri walaalow waxaad u baahan tahay you need help yani in lagu caawiyo caawinaad u baahan tahay sababta waxaan badareemay qofkan in maskaxdiisa ay ahayn maskax wanaagsan sababtoo ah wuxuu ku soo qoray Facebook-giisa waxa idin ka codsanaya dadka qaarkood oo maartay hadalkayga inuu adag yahay ayaa laga yaabaa inay fadlan aysan u qaadan qaar wuxuu ku soo qoray inuu yiri xubintayda jirka ayaa waxa iga gashay cancer iga dhacday sababtaasna waxa keentay inuu yiri in gabar xaaskayga ahayd aan dambi ka galay markaas ay ninkan ma caadi ba waxaan ogaaday qofka inuusan caadi yahay laakiin no excuses marka gabadha qof judge u noqon kara male ilaahay un baa judge u noqon kara marka teeda yaa lagu mashquul maxaa sawir iska qaaday qofka xaq ayuu leeyahay sawir iska qaado laakiin haddii lagu beeqsado Facebook oo aad ka carartid oo wax samaysid dhibaato ku imaanaysa nasiib wanaag haddii aan soo dhexgeliyo Facebook
india hadda wuxuu ka bilaabay inuu soo geliyo sawir adiga aad leedahay oo inta lagaa qaato Facebook kale aan lagu furan karin kow waxa kale uu keenay inuu saaro in geesaha laga saaro videoga aan maaragtay qofka aan laga copy lagu sameyn karin tusaale ahaan sawir adiga aad leedahay gabar haddii aad tahay copy haddii laga qaado mar dhow wadamada kale ayaa la soo gelinaya waxaa dhacaysa in isla markii qofkaas Facebook laga xirayo oo leedahay sawirkan iskale sababtoo ah wuxuu leeyahay hologram ayaa geesaha lagu soo geliyo taasna waa mas'alo kale oo mar kale aan ka sheekeynayn marka haddii tusaale ay noo noqotay qof xaaskaaga ah ama odaygaaga ah haddii aad aamini kari weydiyaa aaminaysa marka bal su-aasha soomaalida idaawanaysa ee 700 aan isweydiino yaad aaminaysaa waa xaaskaagii waa odaygaagii ku qabay haddii uu ku yiraahdo xabiibi meel baan ku maqanahay sawir yar iisoo dir ku yiraahdo oo adiga maalintii tii rabbi timaado oo aad kala tagtaan soo dhigaya barihii social media marka yaa la aaminaa marka sidee looga hortaga waxa looga hortagaya waa very simple qaladka haddii uu dhacay waa dhacay hore waa u dhacay laakiin ninaad jeceshahay nin aad isleedahay waad jeceshahay nin aad isleedahay maaragtay waad jeceshahay aan ku celceliyo nin ku qaba wuxuu ahaadaba wax walba oo dhaca video iyo sawir ha u dirin haddii gabar aad tahay sababtu maxay tahay ka sokow waxa laga yaabaa maybe 1% inuu qaladka noocan oo kale u dhaco laakiin xataa haddii uusan dhicin waxa ka sii darar arrintan waxay tahay in mararka qaarkood meesha aad ku dirtay oo message-ka Facebook lagaa jabsado maalin walba waxaan maqalnaa Facebook ayaa laga jabsaday haddii Facebook lagaa jabsado qofka jabsaday wuxuu u socdaa meesha message-ka la isugu diro u socdaa hadduu galo adna wuu ku yaqaanaa gabadhii ku yaqaanaa copy uu ka samaysanaya wuxuu ku leeyahay hebel iyo hebel ama waxa lagu leeyahay waa lagu baadaya waxa lagu leeyahay $2,000 soo dir marka maxaa laga hortagi karaa waxaa laga hortagi karaa qofka telefoon iskula hadla laakiin sawir internetka adduunku waa isku xiran yahay Facebookna sida loo jabsado aad ayay basiid u tahay marka si kasta u jeclaaw jaceylka waxa ka tanweyn in lagu fadeexeeyo in lagu beeqsado in humiliation lagu sameeyo ayaa ka tanweyn adoo gabar muslimad ah kuwan kale iska badaaba dad ay gabdho badan oo xataa aan muslimin ayaa isku dilay arrinta isdaldalay ama meel iska tuuray wiilal badan ayaa sameeyay dad badan ayaa ku dhacday marka hadirin waayo diritaanka ma in banaanka laga soo dhigay kaliya ma waxa diritaanka uu daba socdaa in Facebook haddii la jabsado meesha ugu horeysa message-ka yaa la aadaya wuxuu eegaya qofka cadowgaaga ama wixii aad ku sheekaysay iska daayay xataa sawire hadallada qaarkood aad ku sheekaysatay screenshot ama in la sawirto ayaa markaa waxa lagu leeyahay waa lagu soo diray waxaasan ka hayaa Facebook ayaan soo dhigay haddii kale sawiro nooc kale ah ama ii soo dir lacag ayaa lagu leeyahay marka gabadhan haddii aan kusoo laabto gabadhan Soomaaliyeed oo maaragtay eed ma leedahay eed ma le gabadhan 100% eed ma le sababtoo ah aniga haddii aan ka walwalo shaatigaan xiranahay ama sawirkaan iska qaaday haddaan ka walwalo noloshayda waxaan gelinaya ciriiri ayaan gelinaya marka gabdhaha Soomaaliyeed noloshooda ciriiri inay geliyaan ma aan xor ayay u yihiin dad waxa soo baxay ilaahay iyo rasuulka ka furtay ayaa soo baxay bal ii sheega inay reasonable tahay wax aqli gal ay tahay nin xaaskiisa iska daa gabar xataa saaxiib iyo girlfriend iyo boyfriend iska daa gabar nikaax aad ku guursatay oo xalaal ah ku qabtay oo idinka intaad kala tagteen tii raba timaaday aad Facebook soo gelisay kawar iyadoo qaawan oo sidii hooyada ku dhashay tahay bal masaxa de qofkii taa aaminsan waa xanuunsan yahay ee isbitaalka miyirka ee wadanku jooga ha yiraahdo war miyirkayga hala ii eego xogaa xanuun bay hay xanuun waa kaas waa xanuun ma ahan wax caadi ah marka gabdhaha Facebook sawirkooda xaq bay u leeyihiin soo gashtaan ani ma lihi gabadha ma ay soo qawso soo gashato laakiin qofka xaq buu leeyahay laakiin haddii aad ka walwashid oo aad ka baqdi ka waran kuwa mooryaanta ah ee Facebook inay qaataan oo dadka waxaas ku sameeyaan haddii aad ka walwashid ka waran waa dhibaatooyin ugu weyn marka dadkan ku biiqsada ee mooryaanta ah waxay ka soo gelayaan meesha adiga aad leedahay waad ugu nugushahay ama aad vulnerable ka tahay haddii aan lahayn rag haddii aan lahayn dumarka waxaaba lagu biiqsadaa oo la yiraahdaa waxaan ka hayaa sawir saas haddii wixii aan doono aan sameyn weysid xataa haddii commentiga aad ka bixisay meesha oo comment fiican aad iga bixin weysid waxaan soo dhigayaa adigoo qaawan gabdhaha iska daayay iyagoo dhar nooc kala watee xataa timahooda markay qaawan yihiin gabdhaha aad bay uga fiigaan taas waa gabdhihii oo dhan hala yaabin gabar Soomaaliyeed oo Facebook ku jirta oo calan u saaran yahay ama actor oo Hollywood ama Bollywood u saaran yahay hala yaabin dad waxa soo baxay ugaarsata ah fashion sameeya waxay ku mashquulan kaliya sawir markaasay YouTube ay ku soo gelinayaan Facebook markaas ku leeyahay subhanallah
bal eeg waxay samaynaysaa gabar inay ku leeyihiin gabar dharkeeda iska wata ama aroos joogta hadda gabdhaha arooska jooga hala yaab markuu yidhahdaan camera ma dooni haddii lagu yidhahdo sababtoo rag waxaa ku jira way dabtaan waa sida fishin ayay sameeyaan iyagoo oo dabashadii ayay aadayaan maxay u samaynayaan websiteyo meelo taana ay ka helaan ama ay doonayaan inay caan ku noqdaan ayay gelinayaan waxay leeyihiin war qoftaan bal eeg wuxuu ka hormarinaya subxaanallah ayuu ka hormarinaya marka wuxuu isu keenaya qof qaawan eeg iyo subxaanallah marka qofkaas iimaanka ma laga qaaday mise lagama qaadin iimaanka waa laga qaaday iimaanka nagu jira ee diinta islaamka udubadiisa ka mid ah ma ahan iimaanka cuntada lagu cuni jiro la dhihi jiro hebel waa iimaanyub maahan iimaanka waxaa laga qaadayaa marka action noocyadaas oo kale sameysay laga qaadaya sida gabadhan lagu sameeyey nin ayaa subax intuu soo toosay aqligiisa uu qabo wuxuu yidhi xaaskaygii hore way diiday video iyo sawiro fara badan oo iisoo dirtay ayaan gelinaya bal muxuu ka faa'iiday gabadha aniga waxaan hubaa 100% waxba ma gaarin waa ceeb saliim ilaahay baa u ceeb qarinaya laakiin ninkan noloshiisa inta ka dhiman wuxuu ku noolaanayaa wuxuu doonaha ahaadee nolol wuxuu ku noolaanaya adduunka waxaa ugu daran in maskaxdaada wixii ku jira oo aadan ilaabi karin haddii uu berri ilaahay ma aragtay uu u towbad keeno gabadhana cafis u weydiisoo la cafiyo oo aniga aan filay wax fiican sababta waxaanba ku iri warniyahow arrintaan iyo meel gaarin aan dhammayno gabadhan aan la hadlaya waxaan ka saar facebook iska xir hawada ka saar way ku cafinaysaa uu diiday berrito hadday dhacdo oo la cafiyo uu xajka uu tago oo nin fiican uu noqdo oo isa soo nadiifiyo qalbigiisa isaga mar walba way ku jirtaa inuu ahaa ninkii xaaskiisa maaragtay iyadoo qaawan oo video banaanka u soo dhigay marka nolol wuxuu ku noolanayaa waxa la yidhaha xayaatul kalba sida eega ayuu u noolanaya qofkaas waayo salaada asoo ku jira xataa hadduu nin wanaagsan yahay wax qalbiga soo galaya hadda ka hor xaas waxaa laga yaabaa video dad badan inay copy ku samaysteen inay iska haystaan waxaa laga yaabaa shabakadaha la geliyo oo cadaanku ay leeyihiin oo dee pornographiga oo waxyaalaha qaawan la geliya laga yaabaa qofkii fiirsadaba dembigaas asagoo socda gabar dembi uma socdo qofkii fiirsadaba igu socdaa sababtoo ah qofka bani aadamka haddii adiga uu ku aamino aaminaadda ma ahan lacag yar la siiyey waxaas maan aaminaaddu waxay tahay qofkii aad isguursataan noloshiina ayaa isku aaminteen marka arrintaas dhalinyarada waxaan u sheegayaa dhalinyarada hadda xoogaa da-dooda u dhexda 15 ilaa iyo 25 wax walba oo dhaca video ha iska dirin video wuu kugu soo laabanayaa sawir ha iska qaadin sawir wuu kugu soo laabanayaa haddii aad aragtid rag ciyaal suuqa oo aroosyada jooga adoo dee xor baad u tahay dirac inaad qaadatid oo aroos aad tagtid xor baad u tahay weligaa ha ka dhagaysanin nin soomaaliyeed ama wuxuu ahaadaba qof walba saan ha u labisanin ha ka yeelin sida sharafta iyo qiimaha iyo muslimnimada islaamnimada ku jira soomaalinimada dhaqankeeda ilan ka filmay gabar soomaaliyeed aroos idoo wadato dabagaab inay ku tagto laakiin anagu dhaqan baan leenahay gabdhaha waxay xirtaan dirac bay xirtaan baati bay xirtaan way buraan hadda aroosyadii waxayba noqdeen in hablaha kaliya ay tagaan marka haddii aad aragtid mid shaxaari oo fool xun oo wato bahalkii iska dhigaya ha ka yeelin sababtoo ah dad waxa soo baxay oo facebooka kusoo lingareeya halkan riix dadkaas haddii aad aragtaan axsaana loo sameeyaa bloga la saaraa comment lama sii sababtoo ah in aad caawinaysa ayaa la diidaya arrinta gabadha hadda meel fiican bay ku socotaa laakiin waxaan idinkaga digayaa dhalinyarada intaan waa idinka weynahay cilmigiina waa naqaanaa oo security-gi iyo waa naqaanaa waxa soo baxay dad maalin walba jabsada facebookyada marka hal erey idinku daraya facebook haddii aad dhegaysatid ereygan hadda aan idin sheegi doono lagama yaabo facebook in lagaa jabsado waa muhiim waa arrimo muhiima si fiican u dhegaysta facebookkaaga waa in aad ku xirtaa telefoonkaaga gacanta waa inaad ku xirtaa video aad far badan ayaan ka sameeyey haddii aad ku xirtid emailkaagana ha iloogin passwordkiisa ama taariikhda dhalashada 1 luulyo 1960 ka dhigan waad iloogaysaa taariikhdaada dhalashada aad xasuusnaan kartid ka dhigo haddii mobileka aad ka isticmaashid inta badan laga isticmaalo waa inuu ku xirnaada muxuu kuu samaynayaa telefoonkaaga haddii meel aan la aqoonsan sababta qof kaa jabsanaya gurigaaga kama jabsanayo haddii meel aan la aqoon oo gobol Soomaaliya ka mid ah ama Mareykanka ama Canada meeshuu hadab laga soo galo waxaa kuu soo dhacaya tax ayaa kuu soo dhacaysa taxigaasoo ku leh haddii aad tahay qofkan ka soo galaya Toronto ama Minneapolis koodka galiyo ku leeyahay sababtoo meel aan la aqoon ayuu laga soo galay wuu yaqaana IP address ayuu yaqaana oo numberka adduunka oo ku shaqeeyo wuxuu ku leeyahay gali ayuu ku leeyahay numberkan
number kan haddii qofkaas ma heli karo saa awgeed lama jabin karo laakiin maxaa loo jabsadaa waxaa loo jabsadaa facebook aad samaynaysaa waxaad leedahay hooyo macaan aabba macaan gabaraan jeclahay waxaas laguma samayso waxaas waxaa lagu jabin karaa waqti basid ayaa lagu jabin karaa waxaad gashaan youtube gala sola groups ku qora sola groups ku qora waxaad arkaysaan 100 video oo qaabka looga hortago in laga jabsado marka ku xir mar walba facebooka waxaad ku xirtaa telefoonkaaga ku xiraysaa haddii qof uu ka soo galo magaalo kale oo doon inuu jabsado uu passwordkii u helo waxa kuu soo boodaya message uu ku leh hebelow ama heblaaye waxaad joogtaa toronto ama minneapolis ama cadaado ama gaalkacyo haddii aadan joogin waxaad leedahay ma joogi koodkaana ma gelinaysa qof jabsan kara male qof adiga aad jeceshahay ama xaaskaaga ama odaygaaga ama saaxiibkaaga in adeerkaaga weligaa passwordkaaga ha siinin qofkaa kaaga xumaado ama yuu kaaga xumaan ha siin passwordka waa wax u qaasa haddii lagugu xiro a condition ah maxaad qarinaysaa passwordkaagii si qofkaas dan kale ayuu wataa marka securityga saas ayaa loo adkeeya laakiin waa la yaabaa xilligan la joogo qof in facebook laga jabsado iyo facebook ayaa laga jabsaday twitterkii snapchatkii lama jabsan karo haddii wadada loogu talagalay aad raacdid wallkayga haddaad gashaan waxaad ku arkaysaan sidee looga hortaga ama youtube gala sola groups ku qora meeshaad gelaysaan marka dhalinyarada waxaa loo baahan yahay idinkoo aada u mahadsan qaybi share garay youtube galay waxaa loo baahan yahay in ay iska ilaaliyaan haddii gabar Soomaaliyeed odaygeedii uu facebook iyadoo qaawan oo argudasho ah uu soo dhigay wiil aad facebook ka baratay axsaanku ku sameynay muxuu yahay haddii aad jeclaataan ayaama wax rag baa waxaa jira hadday kaa waayaan sawir wuxuu ku leeyahay sawir iisoo dir buu ku leeyahay hadduu kaa waayo wuxuu kugu sameynayaa tagsigii aad kula sheekaystay ama risaaladii ama fariintii ayuu meesha soo dhigayaa way fadeexaynayaan qofka wuxuu gaarayaa heerka gabadhan masaakiinta ay gaartay oo ah inay isdishaa ka soo dhawaatay shalay runtii aad iyo aad ayaan ugu xumaaday sababtoo ah gabadheeda noqon kartaa walaasheeda noqon kartaa waxay noqon kartaa hooyaday qof walba waa gabar Soomaaliyeed marka waxaa jira rag cawaan ah ayaa facebook soo gala waad garanaysaan intay soo galaan iska caaytama dadka facebookyada ka jabsada waxaa sameeya dadkaasoo kale waxaa la isaga ilaalin karaa in aad iska ilaalisaan oo ah gurigaaga markaad ka baxaysid haddii qofulka intaad soo xirtid aad ku taagtid waxba samayn maayo dadka facebookooda passwordkooda uu daciifka u yahay waxay la mid tahay gurigaagii oo aad soo xirtay oo furiin uu ku taagan yahay tuug kastaa soo geli kara marka raggan waa tuugo waxay ku mashquulaan inay jabsadaan wax kalena uma doonayaan lacag kama samaynayaan waxay ka samaynayaan in adiga lagugu sameeyo biiqsi lagu waabsado isla markaana tekaati waxa la yiraahdaa ama lagu geliyo maaragtay hostage laga dhigto oo lagu leeyahay waxaas waa inay sameeysaa sawir ii soo dir waxaas ii samee lagu yiraahdaa marka ka hortagidda waa iyadoo qofna aadan aaminin qofka kaliya aad aamini karto waa adiga passwordkaagana 3 biloodba hal mar ayaa la bedelaa laakiin tan ugu muhiimsan oo aan idinku boorinayo aan idin sheegay waxay tahay in passwordkiina aad ku xirtaan telephone numberkiina aad ku xirtaan mail setting ayaa la gala account setting lockout dhankaas video ayaan ka sameeyay geliya waxaad leedahay haddii facebookayga la isku dayo in laga soo galo meel aan la aqoonsan laga soo galo facebook waxaad ka codsanaysaa ii soo dir message meel aad idinka joogtid hadda messageka meel walba ka shaqeeya internet aad haysatid wuu kuu soo dirayaa haddii adiga aad tahay waad gelaysaa laakiin haddii adiga ahayn xaaraan bay ka tahay geli maysid haddii kale arrintan foosha xun ay gabadhan Soomaaliyeed ku dhacday oo iyada shaqada aan ku lahayn oo si daacad ah ninkeedii iyada qabay ula xiriirtay ayaa kugu dhacaysa marka taasna waa muhiim dhalinyarada inay iska ilaaliyaan gabadha hadda waa okay alxamdulillah meeshay joogtaa laakiin dhib ma haysta gabadha hadda wallahi inuusan dhib haysan shalay markaan u sheego waxaan dhib kuma haysan waxaa tahay qof nadiif ah baa tahay qofku dhihi kara male maxaad u samaysay video xaq ayaad u leedahay wax walba inaad samaysay adiga aad ku kalsoon tahay ilaahay unbaa judge ku noqon kara laakiin waxaana ninka dhibka haysato ee foosha xun ee sawiradiisa banaanka la soo dhigay isaga ayaa dhib haysa qof kasta u aqoonsada maanta marka wax walba ayuu isku day inuu sameeyo sawiradan way daba soconayaan maalintuu gabadha uu ka saaro facebookeeda uu xiro raaligelin ka siiyo isagana waa laga saaraya maalintaas ay ugu dambaysa waa in dhammaatay sababtoo ah aqoon looma le waana ka xumahay waxaan idhi qof dhalinyaro Soomaali baa tahay wiil yar baa tahay in lagu caawino you need help baan idhi sababtoo ah qof logic leh maskax leh ilaahay abuur fiican uu siiyey lagama yaabo inuu subaxdii soo tooso wax walba uu ahaado in uu gabar isaga u dhaxday oo xaaskiisa 2 bilood ka hor ay kala tageen
kusoo guro Facebook runtii waa wax maaragtay maskaxda aan keeni karin iska badaaya xataa gabar oo adiga girlfriend iyo boyfriend waxaad iska badaaya gabar adiga xaaskaaga ah in sawiradii ay kuu soo dirtay si qaas aad Facebook kusoo gurtid muxuu ka faa'iida marka shalaydu ma soo hormarto hadda isagaa xun oo shalaynayo oo jeefkii uu u gooyay waxba ma samayn kara laakiin gabadha waxay ogaatay in dhalinyaro badan gabdho badan wiilal badan ay garab istaageen waayo qofka bani aadamka ah ee Soomaaliga ama Muslimka ah hadii laga gardaran yahay cid uu doono ha ahaado waa in la garab istaaga gabadhan aqoon uma lahayn shalay ka hormaan aqoon welina ma arkin laakiin waan ka xanuunsaday sababtoo ah anay ugu dhici kartaa idinkeeda ku dhici kartaa marka intaan ka bixin waa mahadsantihiin weli waxaan ku suganahay magaalada Toronto waxay igu casuuntay sooska Somali Week bahda sportiga oo si aad iyo aad u qurux badan igu soo dhaweysay insha Allah waxaan ku soo laabanayaa Europe Sweden ayaan imaanayaa 15 bishan hadduu Allah awood la yiraahdo live kan waa noo soconaya mar walba laakiin waxa xusuus badan Facebook gabdhaha xor ay yihiin wiilasha xor qof wiilaya lagu beeqsan qofkii Facebook ugu beeqsada kortag block saar maalintiis ugu dambaysa ismaarki lahayn isma taqaanaan waa qof dhaqan xun block saar hatta u jawaabin hatta haduu ku soo caayo diintaada iyo reeraha ku soo caayo ha u jawaabin dadku waxa lagu bahdilaa looma jawaabo block ayaa la saaraa hada wasalaam ismaarkaysan inta noo shiino laakiin hadhihin waxaan ka baqayaa Facebook inaan like saaro ama aan ka hadlo comment ka bixi war xoraad ku dhalatay intiin hadda daawanaysa waxay dhasheen 60 kadib ay dhasheen 1960 kadib hadii araltay xor ayaa tahay marka qof Facebook oo 2008 soo baxayaan lagu beeqsan hadda wax walba waxay noqdeen in la isbeeqsado oo in Mooriyaan meel bay joogto yaa lagu beeqsan xor ayaa tahay soo dhig wax walba qofkii ku soo caaya qofkii wax kugu sameeya qofkii sawirkaaga block saar maalintaas ugu dambaysa waa dhamaatay shaqada meesha ku dhamaatay wax kale ma jiraan gabadhan ilaahay waxaan ugu baryaynaa in ma aragtay niyadeeda qeer ku soo buuxiyo wiilkana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ma aragtay nuur oo tuso oo yiraahdo qalad ayaan gal inteena 700 daawanaysa qalad wada galnay qof dhig kale ma weligay intaan la qalad ma galin laakiin qofku markuu soo laabto waxa la yiraahdaa mistake ayuu sameeyay qalad ayuu galay waa ma aragtay qofkan in waa loo najaxaa hadda haduu wiilkaas arintan waa ogahay inuu daawanayo haddaan u jeedaa uu soo galay u jeedaa wiilkan waa ku jira waa u jeedaa waa arkadu soo galay waxaan ku leeyahay saaxiib ilaahay u noqo hadii aadan salaad tuko fadhiiso waxa tahada qof ma aadan dilin wali dhiig muslim aadan galin laakiin waxa sameysay wax xeerka Soomaaliga hadii lagu qadar dhibaatay ku keen leed ana waxaan ogahay wiilkan qof walba daawanay wiilkan qofna farku ma taaban karo wadan sharci ayaa qofkii farku taabto isaga waxa wuxuu tagay xabsiga ugu weyn Mareykanka meeshuu joogay uu tagay marka wiilkan qofkii arko hal loo duceeyo oo hal warniyo masaajidka imaam maartay arintan ka fogow laakiin qofkii dhahay hebel waa inaan dilaan raba inta samay asaka masuula wadamadan sharciga sabab ama reason ayaa loo sameeyay saa'awad hadii aragtid ina wax dishid wadamada la isku dila tago qoriga qaado waa la yaqaanay marka laakiin wiilkan haduu idin kor yimaado hadda waa daawanaysa saaxiib waa ku jeeda waa daawanaysa waxa sameeysaa waxa dhahdaa war arinta xaalku xuma ila soo xiriir hadda arinta aan dhamayno gabadhan sawirada dambe soo gelin adigana salaad istiqaara atuko ilaahay cafide ummadana ay ku cafinaysa ilaahay ku cafina laakiin muhiimadu waxa gabar inay ku cafiso ayaa muhiima ilaahay inuu ku cafiyo annaga waxaan nahay ma jirto bani aadam ilaahay marka taas ayaan kaga baxaya share gareeya YouTube galiya laakiin title-ka hadii laga bedelo maaragtay dacwan furayna title-ka laga bedelo social media iyo sawirada qaawan ayaa lagu dhaafaya share gareeya qof walba xoreeyo inuu YouTube galiya meel walba waa mahadsantiin insha Allah hadii aan noolnahay asbuuc soo socda waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Stockholm oo ciyaarihiisu ka bilaaban doonaan intaan ka bixin waxaan mahad u celinayaa Muhidiin Jaamac SNTV waxaan madaxda dhamaan madaxda ururka sooska Somali Week oo si xaraga leh uga dhacday magaalada Toronto ee wadanka Canada ugu horeeyo Cabdirasaaq Xuseen Geedi gudoomiyaha ah iyo Mr Sheikh Maxamuud Cadow iyo dhamaan kooxdii Kitchener oo aan leeyahay hambalyo oo ku guuleysatay ciyaaro aad u xiiso badan ku soo bandhigtay garoonka Centennial oo ku yaala bartamaha magaalada Toronto waa dad gob ah dad ma aragtay isku xiran Soomaalimada ay ku dambayso waxaan leeyahay sida qiimaha la soo dhaweysan ma iloobayo insha Allah waxaan noo balana haduu Allah uu diilaado asbuuc soo socda magaalada Stockholm iyo ciyaaraha suuqi oo furmi doona 15 bisha Luulyo garoonka Sponga meesha ayaan balana inta wad kulmi doono waxaan leeyahay Soomaali ha noolaato
gabdhaha Soomaaliyeed ha nooladaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.